wanaagsan khiyaarta qiimaha badan ee ku xiran janaalkeena Nuxur TV ku soo dhawaada maanta iyo muuqaal cusub. Muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadlaynaa nolosha iyo bandhig faneedka fanaanada codka macaan ee mahashada codka Hodan Cabdiraxmaan Dheere. Balse inta aan muuqaalka u gudaggelin waxaan ku xasuusinayaa saaxiibka ina daawanayo inaad janaalka subscribe saarto gambaleelkana furato. Haddii aad janaalka hore u subscribe gareysay fadlan muuqaalka like saar si uu saaxiibadaada kale u gaaro. Waad ku mahadsantahay daawashadaada. طويلو شنقريين شرح لي دقي ششق فاضو جعش Hodan Cabdiraxmaan waa fanaanad ku caan ah heesaha afka Soomaaliga taasi oo saldhigeeda yahay magaalada Minneapolis ee cariga Mareykanka. Hodan Cabdiraxmaan waxa ay ku dhalatay isla markaana ay ku soo kortay magaalada Boorama ee gobolka Awdal ee cariga Somaliland. Hodan waxaa dhalay laba fanaan oo la kala yiraahdo Aamina Cabdilaahi Cabdiraxmaan Cismaan Maxabi Cabdiraxmaan Dheere. Hodan waxa ay fanka ku soo biirtay sanadihii 2001 ilaa 2002 waxayna fankeeda ka bilowday magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya halkaas oo ay xubin kooxda waayaha cusub ka ahayd waxayna waayaha cusub Hodan ugu magac dareen Queen of Artistry. marka aniga iyo waxaan heshiinay Cabdulaahi iyo Lixle wiil yiraahdo oo isaguna raab gareeya oo fanaanintaas qaybta ugu weyn ku jira Mukhtaar oo loo yaqaan dalmaryare oo imika la joogo North America oo isaguna fanaana baan noo hayn waxaana noo suurta gashay inaan sameeyo album la dhawaayaha cusub oo uu lahaashiina laxamka iyo ereyada intaba marka heesaha aad qaadaysay markaas kugu horeysay waxa sheeg ka tahay albumkaasi ku jiray waxa igu horeysay hees la yiraahdo dadkii xasuuqay oo ka hadlaysay dhibaatada Soomaaliya ka jirta iyo hees la yiraahdo anoo baahidaada iyo bukaan saasaan qabin oo aan wada qaaday Nashiin Cabdulaahi heesaasi waa hees aad u caan baxday waxa weeye kooxda waayaha cusub ay ku caan baxeen heestaas anaa hoos ka qaadaya laakiin waqti uma aanan helin markii la duubay fiidiyaha waxaan joogay dalka North America marka haddaad na maqashiiso heesahaasi aad ku caan baxday ama heesahaasi kuugu horeeyay anoo baahidaada iyo bukaan saasaan qabin kalaman bakayleen hawshan kula fogon ugu dambeynna Hodan Cabdiraxmaan iyo hooyadeed waxay u dhoofeen cariga dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota halkaas oo ay ka sii wadatay bandhig faneedkeeda halkaas ayayna ku weynaatay. Hodan waa fanaanad heesaheeda aad looga dhageysto dhammaan geyga Soomaalidu degto dal iyo dibadba waxayna markaasi Hodan fanka Soomaaliyeed si dhameystiran ugu soo biirtay sanadkii 2002 heesaha ay fanaanada qaado kuwa ugu badan waxaa ka mid ah Hanasho iyo Dhiib Gacmaha heesta hoteelada Rigta Nolosha heesta Xayawanaag heesta Sidig iyo heesta Jaalle. Waayo badan kadib Hodan Cabdiraxmaan waxay xiriir jacayl la sameysay fanaanka Mursal Muuse oo ka tirsan xidigaha geeska halkaas oo ay kadib u soo wareegatay waxayna hayso badan la qaaday xidigaha geeska ee gaar ahaan wiilka ay calmatay Mursal Muuse Cumar. ugu dambeynna 2019 bilowgiisii waxa ay ku guuleystay Hodan inay ka dulqaado fanaanada Qadar Silimo xaajigeeda Mursal Muuse waxayna ku aqal galeen magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulkaasi Somaliland iyadoo ay xurguf badan dhaxmartay fanaanada Qadar Silimo. ugu dambeynna bishan December gudaheeda waxaa halkaasi loogu sameeyay xaflad sagootin ah fanaanada Hodan Cabdiraxmaan oo ku laabanaysa cariga Minnesota iyadoo gacanta ku dhigtay saygii ay ka doonaysay xidigaha geeska ee Mursal Muuse Cumar. guud ahaan saaxiibayaal taariikh faneedkii koobnaa ee Hodan Cabdiraxmaan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa waxaana ku xusuusinayaa inaad janaalka subscribe saarto gambaleelkana furato si aad ula socoto muuqaalo kuwan ka xiiso badan waad ku mahadsantahay daawashadaada.